ما معقول ما ندعي كرت سيدان محانا دعي كرين إيشك وحول بويدا عنك أسواتي لا لقيسو هذه ما أكتها نك هذا مش أكوها يقبض هذا نك كان لي هذا علي محودتك إلا ين إيشك بل يا ورقول لي هذه محك هذا ليس كوسكا هذه ما خشيت مياه نكاس وادي لا ماذا حلو وجرا هذا إيشك وكبريا قبض هذا تلفونك مركي كوسو درتم كوشك تمشي إيجوبتو ماي ويا هدات أقعد مش إيجوك تصير أخسيها يقصوا شيك عليها يا محل وحنا سوقات هذه محل وقانا عودي قاس قرف ويمر يوم كوش شيء وحول بريء يعني أركضنا عرنتان عديك هديات كهرت أنا كان كهريني أنا قابل سجل فيني إلين أرميه جاي يصافر قشته ساسو ما سعيبك عنك وي أذر ninka saduu isku malay inuu qatar yahay oo wax uu doono sameeynay oo mugdiga ku qarabto aniga waxaan tusayaa mugdiga sida wax la iskugu fahansiyo mana dhaafayo ninkaas meel kasta uu galo may fahanti haye urusmi allah ma sharka doona nakay soo fuula gaarigeedka waaw labisku uu soo saaray waad mahadsantahay dharkaad ku bedelinayad xagga sare ay ku saaran yihiin ما هذا وين دالنا بريتن رسنا على الكهرباء كاله حن كويدينيا adeer inantiisi maadayna anigii iyada iska cabir ayaan nahay sheekadaas waa sheeko dheer marka aan kaga sheekeynaya orod hadda waa daalan tahay naso abu waxa laga yaabaa meel saxad inuu ku diyaariyo hay waaye adigana iska naso seefda ninkaas arimiis wax ay kaaga sheegtay miyaa jiran ninkeed ka hadlaysaana ninkii ay dhahayso wuu i badbaadiyaan ka hadlaya waxay tiri ninkaasi waa nin aad u wanaagsan aniga dartii ayuuna dhaawac u yahay uuna i badbaadiyey iyo wad sheekada dee waxay kaloo igu tiri waa nin sheekh ah aha maya isaga ma aha ninkaas حالي دون وقروي قبرتي حالي دون أتوسجد مياه مسيحني مايا محايل أنا هرد إيميهين إن يروم بان سحدة كديوان صوته داود يا المستقبل الداونيسان وحل لقو ترجمي استوديو أصل 24 تي في إنابة على إن كيس هدول انتي حاس كيسنا ماذا تاسا يعني سلويديو كليه مدام هذا السويد أنا كل شيء قبرتي وحنا ما تعمل كسوقات إيد نفتكت ما سبب وكان هذا نقرأ جايو بلابا هذا الشيء سبب ويلكي محو إذا كقلب صدق إيش waxaan rabaa inaan ogaado wiilkaygu wuxuu idinka galabsaday wiilkayga wiil yar ayuu ahaa bedelkiisa aniga maxaad ii dili weysay sabab aan wiilkayga ku dishan sabab
علي هذا ريح كنت ترتكك عوا شيطان يا خندق وخواتي مسكينك علي قولي واديني هسه مستشفك وجيها انت سان عادي ماهي maya isbitaal uma baahna saaxiibkayga feerda ayaad waxaysaa wax walba ood baanta isagaa keenaya ood igu daaweyn lahayd isaga teleefonkiisa wac arrintu iska hagaagaysaa ina keen هاي burush xageed u socotaa سعيشك أنا فرماسيا maxaa dhacayna farmashiya maxaa ka doonaysaa شعليا داو رادي هويا هاي مرحبا عادي ما ما بلغ سان لو أردا مدينة إلى أحمرين سان سو أردا هو داوينك وات ما سنتها مالي ونكسن باي waxaan rabaa daawooyinka cirbadaha kuwa dhig joojinta faashad kulli waa u baahanahay laakiin maxaad ugu baahan tahay in ii sheeg caliya ii soo dirsaday cali maxaa ku dhacayna cali asaga maa dhaawace may wax weyn ma jira anima ii sheeg in wax ku dhacay laakiin waxaas igu yiri qofa u sheegin arrintan هاي وانكو باهناي هل مر إنان بحر ومي ما كرتا dhalinyaro balkaali halkan ay imaada kaali wax yar هاي محسوسة إيدي aaw shirqiina cali ما أركن أنا yaa mid ma jirin oo buuran oo saaxiibkiisa ah فيرد ما كادلو سا فرمشيس سي أرداي علي داو إيسو درس داي موجي أنا farmashiyaha xaguu ku yaalla حقسكو يا لا intuusan farmashiyaha ka bixin waa inaan qaban haddaan qaban cali gacantaan ku haynaa ina keen لكن عيال معلم له محاول تاجتين ودا اسكبه hay hay هو قبل كان كرت okay كان قدر هو كان قدر أنا قام كراعة أقصنا وط معقول ما هن علي محاسيري كلجا إيمو يا أخي أسقس ما ضيق رواه وبال أنا قو إيه بهيه وأنا كراعة مرك وقسم دس لكن علي gabadheeda qaar sheekay waaba isoo orsiisay يا وين أريد دقدقة يا جرت هو يوم بحايا هاي صباحي نكن laakiin gabadheeda ii sheeg meesha u socotid هاي وقت أنا وحكوا فانسي ما هاي نكن هذه مرحبا أنا مري gabadheeda صع صار gabadheeda adiga wixii sheeg miyaa iska bixaysaana gabadheeda yaqa wixii sheeg alo khayr lama jiro intay aadi cali may u tageen cali kaliimiya ay weydiinaysaa gabadhaada ma weydiinaysid labadoodiyaa kuu muhiima maya ani saas ma ka hadlayo wax yar haddii lagu weydiisa markii wax xanaagaysaa xanaaga iska yarey aniga waxaan la yaabanahay sababta adiga kula noola aniga ma waalan mise adiga waalan ilaa iyo hadda anigu waa is weydiinaya waxaaba ka baqayaa sidaan haddaa kusii socoto gabadhaadana inaa adiga ku raacdo idinka halkaan nagu sii sugo haddii aan isdabagalno dadku way naga shakinayaan waxa rabnana kama soo ogaanayn marka halkaan waa inaa nagu sugtaan waa run adigna meeshaan sii joog هاي naga soo مضر laabana ina keen maalin wanaagsan maalin wanaagsan ilmey maxaa nii qabtaa wax yar ka hor waxaa la ii sheegay friidi inuu meeshaan joogay aawe xaguu ka baxay adiga istooyan cali ma arkina ninkayga gacaliya ninkaa ma xasuusatid miya waa ninka habeenka anakoo marayna masaajidkana weydiinaya cali asiga waaye haddaan soo xasuustay anigaba haddaan idin soo xasuustay aye mideeda kale habeenkaas gabadhiina xataa waa idinla socotay
gabadhiina waa takhtarad soo maaha nacam farmashigan iyadu u furan yahay soo maaha nacam maasha allah waa gabar wanaagsan aniga hadda si cad ayaan wax idiin weydiinayaa ugu horreyn aniga iskiin baro magacayga waa duuliye saaxiibkayna magaciisa waxaa la yidhahdaa xaliye waa nin ganacsada sidooda kale aniga iyo isaga iyo cali arrin ayaa naga wada dhexayso fardina sidaasaan idiin weydiinaya haddii aad na caawin kartaan na caawiyo waa iga codsi maxaa rabtaan oo idinka caabiya ii sheega anaga waxaan rabnaa keliya gabadhaada inaad u wacdo meesha ay joogaan in aad noo sheegtaan gabadheeda faaraas maxaa soo geliya wax yar ka hor ninkaaga sooma dhihin ninka iyo gabadha ayaa israaceen ninkayga wax ma oga asiga arrimahaas waxba kama jiraan hadda aniga okaadi aamus naga raali noqod haddaa khalad noo aragteen markaxay adigan waaya mac salaama sidoo kale mac salaama adiga ganfuuri markaan waa soo badbaadisay aniga si edaable ila hadalaan ku dhahay sawaya aniga xishmay sawa ninkaagan ahay ay u dheelin si qaldamaan kula hadla aniga ii sheeg dadkan waxay damacsanaayeen adiga ma fahansan tahay cali ayay rabeen inay raadraacaan farmashiyaana sidaas ayay u imaadeen aniga maxaa naga gadisay dadkan dad oo waxaa ganacsata waay ganacsata aday ganacsata ayaa ka hadlaysaa dadkan qaabkooda iyo sida u hadlayeen waxba kama fahmin maya wax ma fahmin weligaana wax ma fahmin sidaan la ahaanaysaa adigii gabadhaada isku mid ayaatiin iyadana way wareeraysa waxba ma fahmaysid masiibada nagu soo socota ilaaha naga xijaabo dadaa wax fahmin ayaa meeshaan buuxaan iyaan ka xanaaqa aniga adigaba hadduu sidaan u dhaqmaa gabadhiisana sidee u dhaqmi doontaa nahuza lagu yidhi maxay tahay dhaqanka igula dhaqmaysa dooley farmashiyaha markaan galnay nin waxaad iska dhigaysa akhyaara aniga nin mooryaanaad iga dhigtay xaliye aniga marar badan ayaan wax kuu sheegay waxaan ku dhahay markii aad dan leedahay xoog waxba laguma raadso ee deganaan ayaa wax lagu raadaya sida waxa aad rabtay aad u hesho degnaan ayuu ku leeyahay fiiri degnaanaad leedahay aniga ninkaas waxay uga afduubtay gabar aan jeclahay waan sugaynaa wayna imaanayaan ninkaas ciwaankiisa haddii aan helno si toosaan ugu tegaynaa isdeji oo keliya hay mudan xaliye sidee waxu jiraan halo tuusha xaggee joogtaa xaafadda gurigaaga farmashiyaha u dhow ma taqaanaa qofka iska leh iyagu ayaa iska leh maxaa dhacayna gabadhaas way ogtahay cali halka uu joogo wayna iga qarinaysaa waxaan rabaa inaad u wacda akhbaar iga soo siiso waaya xaliye waan samaynayaa ilaa hadda qandhada ma soo jebin feerdi muxuu la soo habsaamaynaa habkade cali wax walboo dhacay aniga ayaa u soo wax walboo dhacay cali muxuu ila hadlayaa abu cali sheeg bas hadla hadda caafimaad baa sahelaysaa cali walaashay cali waxay igu dhahay keliga imaw laakiin adaa ila socotaasaan yeelahay marka bis hee feerdi bis waan ku baryayaa gaariga intaad soo korin ilaa hadda halkaas erey ayaa ku soo celcelinaysaa xaggeen ka baxaa hadda midig u leexo dhaawaca keligiisa disdhayi karin waxaas idhihi laha baawarka soo qaado gabadhana soo wad laakiin guriga waa imaan waa kana waxaas idhahay qofa u sheegin halkaa miyaana guriga waa ko soo dhawaada cali
qandhaxun ayaa saaran waa xanuunsan yahay garabkiisa waa dhigoyaa mujadido dhinaca garabka waa halkan adigoo raaliya xoogaa miga sika kartaa feerdi boorsada ii dhiibal xabad miyaa ku dhacdayna cali dadkan dhibaatada ay ku geliyeen maxay tahay balaayadan xaggee kaaga timid waayahay sidaas haddii ay tahay Diego u sheeg inaan aniga u imid waaya aniga u sheegaayo mahadsanid gabadheeda Diego mar walba ayaan u sheegaa aniga waxaan dhahay gabadhan ka leexo waa kana iyadana way daba socotaa haddii kale dabeecadaheedoo kale ayay yeelanaysaa hadhow camna dadka aniga ayay igu sheekaysanayaan mar dhow wuu soo naaxayaa alxamdulilah eebbo adaa mahad leh marwa Diego cali sidee tahayna caafimaad ayaan kuu rajaynayaa mahadsan hadda waa runa waryaa saaxiib gabadha maxaa u soo dhibtay oo halkan aad u keentay waxaa waaya mataqaanaa garabkee ku dhigays mogtaa eed hadda dhiig badana kaa dhooy anigaa ku madaxadayga halkan inaan imaado mahadsan laakiin way soo dhibtee maxay tahay dhibaatada ka hadlaysid cali run ahaantii aniga adiga waan kuu cabsaday waxaa laga yaabaa daacadnimadaada inay ku keento dhibaatadan laakiin dadka aad adiga naftaada u huraysid marka hore waa inay istaahilaan adigana aad ka fiirsataa waaba ilaahay mahadiis haddii ay xabadda ku sarto oo keliya oo aysan gudaha kuu gelin fardiyo inanta waa inaad farmaysigeedii ku celisaa haddii kale reerkeeda u warwaraya aniga ma wadagdegsanay soo ma ahanna fardi aniga intaana soo bixin kahor waalidkayga waan wargeliyey kurbada iska daa marka cali aniga sidaa haddii aan kaga tago waan kaa murgaayaa may inaad ii murugto looma baahno waa isku filanahay dadkan ayaa garbeyga taagan idinka ordaa guryihiin isaga laabta waayaha cali cali aniga waan baxayaa laakiin beri waan soo laabanayaa maxaa ila waxaa loo baahay inaan mar labaad ku dhayo anigaa u dhayaya ma garatay marka adigana ha warwarin adiga dhayitaanka shaqadaada maba ahanba awoodna uma lihid waxaa laga yaabaa bakteriya inaad ku reebtid may ha isoo dhibin arrinta beri waa ka wada hadlaynaa okay waayaha cali sii socon dade cali daawooyinka halkan ayaa kuu dhiga cuntada markaa cuntid kadib waa inaa ayagan cuntaa cuntada aniga u karinaya markaan u kariyana daawona waan siinayaa adiga halkan ma joogaysaana maxaa dhacay waan joogayaa ilaa uu ka caafimaado maxaa dhacay fardi ayaaba joogi karay aniga adiga waan israaxaynaa waan bixaynaa adiga family ayaad leedahay way ku walwalayaan maxaa dhacay reerkayga ma warwarayaan waayo way ogyihiinba waayahay awal baya isla wareegto walwalaaya naakaali soo joogso maxaad hoosta kaga xuraamaysin hadalka kor igu qaad fiiriya saaxiibkay gabadha way daahsantahay orod waayah soo socaya maxaa u suran tahay hayhay cali caafimaadaan kuu rajaynaa daawadayaal misaalkan aad daawanaysaan waxaa lagu tarjumay studio asal 24 TV मोहब्बत से नहीं वाकिफ बहुत अनजान लगती हो हमें मिलना जरूरी है हकीकत ना समझती हो कोई कैसे समझ पाए किसी के दिल का अफसाना
मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। अगर इकरार हो जाए किसी से प्यार हो जाए बड़ा मुश्किल होता है दिल को समझाना। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना। मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना।